waxaan ku suganahay deegaan diimeedka Huurshe ee gobolka Galgaduud halkaas oo toddobaadkii la soo dhaafay si weyn uga socotay siyaarada caalamka weyn Allahu raxmadee Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Diraad siyaaradan sida la socotaan sanad walbaba marka la gaaro xilligan ayaa la isugu yimaadaa waxaana laga soo siyaartaa qaybo kamid ah gobolada dalka iyo dalka dibadiisa intaba siyaaradan sanadkan waxa ka qayb galaya mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug xildhibaano wasiiro gudoonka gobolka Galgaduud iyo sidoo kale hogaamiyaha guud ee golaha culimada ahlu sunna wal jamaa macallin maxamuud sheekh xasan faarax iyo sidoo kale culimo aad u fara badan oo ka soo siyaartay meelo kala duwan sida arki kartaanba halkan galabtay waxa ka socota banaanbax weyn oo qayb ka ah weynaynta siyaarada oo ay abaabulayeen culimada ugu sareysa amaba ugu badan ee halkan siyaarta uga soo qayb galay culimada kala duwan ee dariiqa suufiya oo galabtay halkan qaybahooda kala duwan ay isugu yimaadeen waxaana qaar kamid ah culimada oo halkan galabta banaanbaxa ku sameynaya bandhiga oo aan la hadalnay ayaa nooga warbixiyay sida ay u socotay siyaarada iyo ahmiyada ay uga dhigan tahay culimada halkan uga qayb gashay iyo dhammaan mas'uuliyiinta soo siyaaratay Allahu raxmadee Sheekh Yuusuf Diraad waxaan ku sugannahay barnaamijii bariixa sheekhaani weynaa Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim rahimahullahu ta'ala rahmatul abraar sida aad u jeedaanba meel walba galabta waxa ka socda ayadoo ziyaartu iyo ducada iyo quraan akhriska iyo ilaah barigu mashaayikhda ayaanta dhan ay socotay ama maalmahan oo dhan ayna sii socod doonto hadii ilaahay uu idmo sheekhaani Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim iyo Sheekh Muhammad Guuleed iyo mashaayikhdoodii iyo waalidkeeni iyo mucallimiinteeni iyo dhan hadda waxaan galabta lagu sugan yahay oo socdaahi waa banaanbixii oo dadku ay dhammaan iskugu soo baxeen banaanka meeshaana ilaahay suuqayo keenay ilaahay baa xamdigu u sugnaaday ahbaabtii ahlu dariiqadii ahlu sunna wal jamaa dadkii khayrka lahaa baa ilaahay isu keenay meesha aan nimidna waa meeshii mashaayikhdeedii Sheekh Maxamed Guuleed iyo Sheekh Yuusuf ay joogeen ayagaan soo ziyaaranay ziyaaradoodana waxaan ilaahay ka baryaynaa diin iyo dunawi iyo wax walba oo khayr ilaahay inuu gaarsiiyo waana ku gaaraynaa insha Allah al-Mawla qof walba muraadkii uu lahaa diinan iyo waduuyanba ilaahay ha nagu siiyo galabtay waxa farxad iyo sharaf gaar ah inoo ah inaan ka soo qayb galnay ziyaartii mashaaikhdii waaweynaa caalamka Soomaaliyeed al-Aarif billah al-Sheekh Yuusuf oo loo yaqaan Sheekh Yuusuf Diraad iyo Sheekh tilmiidkiisii oo Sheekh Maxamed Guuleed oo aan uga soo qayb galnay deegaankan Huurshe inagoo runtii safar dheer u soo galnay